بسم الله الرحمن الرحيم كلنا هبون داوديال رمضان الكريم دادك Soomaaliyeed oo meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqada wararka caalamka iyo Soomaaliya barnaamijkeena maanta xiiso gooni ay leeyahay qodobada wixii badan aan ku qaada ligi doonaan waxa qayb ka noqon 250 diyaaradood oo ku xamuulka qaaday Mareykanka ayaa gaaray gobolka Bariga Dhexe ay tahay sababta keentay waqtigan halkaas intaas diyaaradood oo intaas leeg ay ugu soo qulqulayaan xiisada dagaalka Iran iyo Mareykanka ayaa u muuqata in markale cirku isku shareeri doonto waan isla eegi doonaa qubanaha aan ku qaada ligi doonaa sidoo kale barnaamijka aan diirada ku saari doona ama aan ku falanqeyn doona wasiirka arrimaha dibadda Iran ee Arjil ayaa markaas ku amaanay horumarada wanaagsan wada hadalada nuclear-ka ay markaas leeyihiin Mareykanka sida weyn markaas looga hadlayo dalkaas Geneva kulamo xasaasi ah ka socday saacadii ugu dambeeyay iyadoo Arbacadii si weyn looga balansanaa halkaas inay ka qabsanto kulanka ugu muhiimsan ee markaas lagu dhaxdhaadinayo Mareykanka iyo Iran maxaa ka soo kordhay qubanayn ayaan ku qaada ligi doona waxaan sidoo kale isla eegi doonaa wasiirka arrimaha dibadda Netherlands ayaa markii ugu horeysay sheegay inay markaas jirto hab lagu jabsan karo software-rada diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay markaas soo saaraan F-35 loo yaqaano iyadoo markaas looga baahneen waxba ogolaanshaha waagaag xiisad waysiadkaanaysa marka Netherlands hadii ay muuqato iyana inay markaas shaaca ka qaadayso habka ugu fudud diyaaradaha lagu jabsan karo waan isla eegi doonaa qubanayn ayaan ku qaada ligi doona dhinaca kale hadii aan fiirino saraakiil ka tirsan Kermelka ayaana sheegay in ciidamada badda ee Ruushka ay markaas ay joojin doonaan qabashada maraakiibtii ganacsiga ay markaasi ay sameysay dalalka galbeedka maxay tahay sababta keentay waqtigan in Kermelku saacad u shaaca ugu qaado in maraakiib ganacsiyeed markaasi laga qaban doono ama Ruushka ay la wareegi doonaan waan isla eegi doonaa maxaa ka soo kordhay waxaan sidoo kale isla eegi doonaa meeshii Ethiopia hayna warweyn ayaaba ka soo socdo oo waxa muuqata in markaasi laga wado mashaariic aad u waaweyn ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo waliba soo kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn ugu arrinsanay halkaasi iyadoo la tilmaamayo in bilaayin lacag ah halkaasi lagu maalgelinayo iyadoo aan ognahay sidoo kale in Ethiopia si cad ay u sheegtay inay u baahan tahay bad oo waliba si bari aan ahayn ay ku heli doonto hadaba Soomaaliya waa dalka ugu xeebta dheer dalalka Afrika ma Soomaaliya la soo fargelin doona qubanayn ku qaadan qodobadaasi waliba wixii kale inuu soo kordha saaxiibadeeda kana noo cimaamada oo subscribe tahna la dhaafin like share sidoo kale saaxiibada hore noola joogo noo like muuqaalka sina sheegay saaxiib far badan ay la tusay samaasanidin markale Ramadan Kareem aan ku bilaabay warbaahinta Mareykanka oo ka soo baxda CNN ayaan markaas ku warantay in toddobaadyadii ugu dambeeyay in ka badan 250 diyaaradood oo ku xamuulka qaaday Mareykanku ay gaarayaan gobolka Bariga Dhexe iyadoo markaas warbaahintu intaas ku dartay in dhaqdhaqaaqyada military oo markaas la xiriiri karo diyaar garowga suurtagalnimada in markaas uu wajaho weeraro laga yaabo in markaas lagu qaado Iran xilli markaas isha lagu hayo wada hadalada Geneva ay markaas ku lahayeen Mareykanka iyo waliba sidoo kale Iran talaabada tani ayaana imaanaysa xilli dhawaan ay sadag markaas ugu hadashay Iran qorshaha ugu adag halkaas lagu waday in lagu qabto kulamada goonigoonida ay ka wada yeelanayaan sida nuclear-ka laga yeeli lahaa walow talaabada ugu badan ay qaadayaan ay tahay in markaas gebi ahaan laga hortago waayaha aragnimada ugu aadisan waqtigan Iran iyo waliba sidoo kale qorshaha adag ee Mareykanku isagana uu damacsan yahay tan iyo waliba bilowgiisa diyaar garowga uu qaadayo talaabada diyaaradaha ka dhankee waa saameynta marka loo eego Bariga Dhexe oo walibana xaaladeedu ay cirka isku soo shareeri karto inkastoo aan la xaqiijinin haddana waxaa jirta qorshaal adag oo waliba muuqata labada dhinac inay isweydaarsan doonaan waan eegi doonaa wixii kale ka soo kordha dhinaca kale hadii aan fiirino ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu markaas ku xiray mustaqbalka xiriirka Ethiopia iyo waliba Turkiga sida markaas Turkigu ay gacan ugu siin lahayd in ay hesho marin badeed inta markaas ay ku guda jireen shirka jaraa'id ayana si wada jira Addis Ababa markaas uu uga qaatay Erdogan oo isna markaas booqashadiisa ku tagay dalkaas Ethiopia hadaba Abiy wuxuu yiri waxaan rajaynaynaa yiri wada hadaladana Erdogan inuu markaas gacan ugu siin doono gaaritaanka ama gaarsinta marin badeed oo aad u ballaaran hadaba Turkigu wuxuu og yahay in Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer dalalka Afrika ma muuqata in talaabadeeda waqtigan fargelin xoogan lagu soo yeelan karo waana sababaha ugu waaweyn waqtigan Erdogan iyo waliba sidoo kale Abiy Ahmed ay loolan siyaasadeed halkaas ugu dhaxwadaan waana talaabooyinka aan arki doono hadii ka soo baxaan wada hadalada hadda ay halkaas ku leeyaan shirarka jaraa'id ay halkaas ku qabanayaan iyo waliba saameynteeda ay ka dhalan karto Erdogan ma awoodo inuu markaas Ethiopia marin badeed uu ka siiyo badda Turkiga taasi oo markaas bedelkeedu wuxuu ku yiri Abiy oo tixraacaya dhexdhexaadinta Turkiga iyo waliba sidoo kale Soomaaliya iyadoo sidoo kale Ethiopia oo in markaas u ballan qaadayso in ay Ethiopia ay hesho marin biyood oo walibana aad u baaxad leh dhankeedu iyadana ay ka kalluumaysan karto dad xog ogaal ayaa tilmaamaya in Turkigu maadaama xeebihiisu uusan waxba ka bixin karin laakiin uu muuqato waqtan inuu ku soo fogan yahay isagana qudhiisa
badda Soomaaliya maadaama marin badeedka ugu dheer ee dalalka Afrika ay ku jirto Soomaaliya waan eegi doonaa wixii kale oo ka soo kordha kulamadoodii maadaama halkaasi ugu socoto wada hadallo iyo waliba sidoo kale shirar jaraa'id ay qabanayaan balse Ethiopia waxay aad uga adkaysanaysaa in ay markaasi hesho marin biyood oo waliba cajiimo waagaag markana haddii aan fiirino wasiirka difaaca Netherlands Geerts Thinia nin la yiraahdo ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegay in ay jirto hab markaasi lagu jabsan karo software-rada diyaaradaha dagaal ee Mareykanku markaasi u soo saaraya F-35 iyadoo aan markaasi loogu baahnayn wax ogolaansho in markaasi la ogeysiyo ama markaasi ogolaansho laga helo si markaasi si dib loogu cusboonaysiin karo ama loogu sameeysan karo xilli ay markaasi dalalka Yurub ay walaac xooggan ay ka qabaan dhinaca iyo waliba sidoo kale ama ay dhici karto haddii Mareykanku uu hakiyo in dib u cusboonaysiinta nidaamka software-rada F-35 fiiro gaar ah hadaba diyaaradaha F-35 waxay markaasi leeyihiin nidaamyo software oo u baahan waqti kasta in markaasi la cusboonaysiiyo si sare loogu qaado awoodooda waana habka markaasi ee ka mid ka noqon karo telefoonada shirkadaha Mareykanka ee markaasi Apple iyadoo sanad walba markaasi iOS kiss la yiraahdo markaasi lagu daro waxyaabaha la soo kordhiyo sanad kasta markaasi lagu soo biiro sababtoo dib u cusboonaysiinta lagu sameeyay F-35 ayaa waxa markaasi loogu dan leeyahay inay markaasi ay ka degto cid kasta oo ay markaasi isku daydo in ay wax ka bedelan karto si kastaba haatee diyaaradaha difaaca Mareykanka ee walibana kuwada F-35 ayaa u muuqda markan in walaac xoogan soo saaray shirkadooda talaabada tan ayaana la tilmaamayaa in ilaa ay waqtigan qorshe adag iyaduna ay ka gaari doonto wixii ka soo kordha qubanayaashana dambe ayaan ku qaada ligi doona markana 250 diyaaradood kuwa markaasi xamuulka qaaday Mareykanka ayaa gaaraya gobolka Bariga Dhexe sarkaal sare oo ka tirsan Kermelka ayaana ka digaya in ciidamada badda Ruushka loo diri karo si ay markaasi uga hortagaan dagaalka galbeedka si ay markaasi isku dayaan in ay qabtaan maraakiibta Ruushka taasi oo markaasi qayb ka xuna qabateenta lagu saarayo dhoofinta shidaalka iyo waliba sidoo kale Mexico ay markaasi ugu yeerto Schofield waxa la yiraahdo Nigel Price oo markaasi la taliye sare oo ka tirsan Kermelka ayaana markaasi u qaabilsan arrimaha maraakiibta isla markaana saaxiib dhowna la madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxay kale ka soo kordho qubanayaashana dambeeyaan markaasi ku qaada dhigi doona ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda difaaca Iran Abbas Arji ayaana sheegay in horumaro wanaagsan laga sameeyo wada hadallada labada dal ee nuclear-ka ee u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka xilli Washington ay markaasi ka digtay talaabada tan ee military in ay wali miiska ay saaran tahay haddii aanan markaasi wada xaajoodkeenana fashilmin wada hadalladan ay markaasi dhexdhexaadinayso Oman ayaana markaasi lagu wadaa in magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland mar kale isugu soo laabtaan si ay ugu wada doodaan qorshaha ugu adag ee laga leeyahay ugu dambeyntii waxaan markaasi heshiiska mabaadi'da guud ee u hogaya hogaaminta iyo waliba kuwa kale markaasi ku saleen doona ayuu yiri qoraalka heshiisyada suurtagalnimada ayuuna Angeli markaasi uu ku sheegay telefishinka dawladda kadib kulamada oo horumaro wanaagsan laga sameeyay ayuu yiri iyadoo markaasi ay ka dhacdo Oman horaantii bishan ayuuna yiri isagoo intaasi uu ku daray haddii aanan markaasi wada hadallada tani hoos la isugu wada dhiganin warqadaha la isweydaarsanayna hoos loo dibdhicin ama markaasi hoos loo eegin waxay yeelan kartaa buu yiri saameyn ballaaran oo mar kale ay kicin karto laakiin saaxiibkeena ama dhigeena Mareykanku mar walba waxaan ugu digaynaa oo diyaar u nahay inaan markaasi si dhow aan u wada xalin karno tabasho kasta ay ama caqabad kasta ay timaadayna guul ayaan ku dhameyn karnaa haddii laakiin colaadil horseedana Iran ma meel difaaceedu uu yar yahay ama la sahlaysan karo xaqiiq waxaan tusi doonaa ayuu yiri Mareykanka haddii talaabadiisu uu qaadiyo ama markaasi uu ku fogan yahay in uu dagaal kale u diyaarsan yahay ha ogaado waxaan inaguna diyaar u nahay ayuu yiri amaba aan leenahay nuclear-ka kuwada ugu dhaadheereeya ama plastic loo yaqaan ma rabno waqtigan inaan dhiig daadino laakiin waxa inaga go'an in wada hadallada aan markaasi si Google nabdoon ah waana intaas qubaniye Shariif Show aad kala socoteen saaxiib yal noo cimaamada oo channelka subscribe noo saar like saaxiib far badan inuu tusay saaxiibada hore noo la joogo muuqaalka noo share garee ma sanadin